ninka odayga Hargeysa maamula iyo qolyaha kale Muqdisho maamula iyo kuwa laanlaanada la baxay Soomaalida maamula dhamaantood Ilaahay ka baqa waa dhimanaysaa haddii 50 sano dambaasiin noolaatana. ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa soo xiray Mustafa Cali Caanood oo ah shakhsi faafiya fikirka khawaarijta Al-Shabaab. baraha bulshada ayuu caan ka ahaa waxaana uu ku joogay wadaadnimo. magaciisu waa Mustafa Cali Caanood. waxa uu taageeray afkaarta xagjirnimada ah ee Al-Shabaab. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaana maanta soo gabagabeeyay oo xabsiga u taxaabay. muuqaalka like saar daawade intaan u gudagelin warbixinta oo dhammaystiran ku soo bir janaalkeena Ducaysana Media iyo page-keena Ducaysana Media oo like garee followna dheh oo u share garee saaxiibadaada sida uu baahu muuqaalka ku mahadsanid daawade. kulanti habboon saaxiibayaal meel kastoo aad dunida daafaheeda ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeena Ducaysana Media iyo page-keena Ducaysana Media oo aad inooga barateen inaan idinkugu soo gudbinno warbixinada markaasi taagan. wadaad caan ka ahaa baraha bulshada oo lagu magacaabo Mustafa Cali Caanood isla mar ahaantaana taageeray afkaarta Al-Shabaab ayaa waxa ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya maanta ay soo qabteen isla mar ahaantaana ay xabsiga dhigeen. wadaadka ayaa sida la sheegay la jirdiray isla mar ahaantaana waxa uu muddooyinkan dambe baraha bulshada ka waday sidii uu ku faafin lahaa fikirka xagjirnimada ah ee Al-Shabaab. wadaadkan ayaa waxaa muuqaaladiisa ka mid ahaa kilibkan ila daawade qaabka uu baraha bulshada uu kaga hadlayo. ninka odayga Hargeysa maamula iyo qolyaha kale Muqdisho maamula iyo kuwa laanlaanada la baxay Soomaalida maamula dhamaantood Ilaahay ka baqa waa dhimanaysaa haddii 50 sano dambaasiin noolaatana. Ilaahay baana hortagaysaan qabri baad galaysaan fursad baad haysataan wali aad ku toobad keentaan. macsuumna ma aha sheekhi markaan uu khaldamay hadduu shalay kula fiicnaa wuxuu ku khaldamay nin dhaalima oo kitaabkii la dagaalamaya oo Kristan iyo qoomuluud difaacaya inuu u duceeyo ugu duceeyo waliba cimri dherer iyo ku sabar mid ciidamada dowladda ayaa sida la sheegay wadaadkan waxa ay ka soo qabteen deegaanka ceelasha biyaha oo ah duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo halkaasi ku dhuumaalaysanayay waana la xiray iyadoona sidoo kale haatan la geeyay xabsi ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo baaritaano lagu wado. sida la sheegay dadka qaar ayaa waxay leeyihiin wadaadkan ayaa si toos ah uga tirsanaa ururka Al-Shabaab. ku mahadsanid daawashada muuqaalkan fadlan daawada muuqaalka la garee oo la wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawade.